magaalada Bulubirte ee gobolka Hiiraan waxaa laga hirgeliyay markii ugu horeysay xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalka Soomaaliya waxaana halkaasi xafiiska laga furay uu bilaabay in uu bixiyo baasaboorka dalka Soomaaliya oo muddaba dadka ku nool magaalada Bulubirte ee gobolka Hiiraan oo ah magaalo aad qadiimi u ah isla markaana go'doonsan muddooyinkii dambana dadkeeda si weyn ay ugu baahi qabeen in ay helaan baasaboorka marka ay u baahan yihiin ay ka soo raadin jireen magaalada Muqdisho isla markaana waqti dheer iyo masaafo dheer ay u soo mari jireen waxaa hadda ay si fudud u helayaan oo xafiiskii laanta socdaalka iyo jinsiyadaha laga hirgeliyay degmada Bulubirte ee gobolka Hiiraan dadweynaha ayaa qaatay oo muddo kooban ku qaatay baasaboorka Soomaaliya warbixin arintaasi la xiriirta ee sida bulshada Soomaaliyeed ee halkaasi ku nool ay ugu faa'iideysteen adeegaasi waxa magaalada Bulubirte inoogu soo diray warbixintan Maxamed Cismaan Makaraan oo inoogu soo warrama gobolka Hiiraan xafiiska hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ay dhawaan ka furtay degmada Bulubirte ee gobolka Hiiraan ayaa markii ugu horeysay bilaabay bixinta adeega baasaboorka iyadoo maanta qaybtii ugu horeysay la guddoonsiiyay baasaboorkii loo sameeyay kuwaas oo loogu sameeyay xafiiska Bulubirte laga furay dadkii baasaboorka loo sameeyay iyo shacabka magaalada Bulubirte ayaa soo dhaweeyay furitaanka iyo shaqada xafiiska ayagoona sheegay in dhibaato badan ay u qabeen helitaanka baasaboorka meesha ugu dhow ee ay adeega baasaboorka ka heli kareen ayaa ah magaalada Beledweyne oo qiyaastii 115 kiiloomitir u jirta anigoo ah magacayga Naciima Cabdiwahaab waxaan aad ugu faraxsanahay inaan degmada Bulubirte ka qaato baasaboor markii ugu horeysay waxaana u qaaday hooyaday waxaana ka qaatay degmada Bulubirte si yar oo dhib yar waliba aan ku helaan safar dheer waxba u marin awal waxaan u aadi jirnay Muqdisho بس ما عندنا مقدشة وما هذينا وحنا كده حلنا دق مدة ندحديس عادي هذا وفرح سنة مركز هذا ترتيب ما دام عن حلنا يعني شيك باسبور كيسير وفضود عن كهلنا بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحلي هذا بشار علي الشرع وحن ما أنت كفرح سنة إن أنا أقاضي باسبور أبهي علي الشرع عمر عادي هذا يعني كفرح سنة هاي وحنا محد علينا يا الله كسكو هذا وحنا محد علينا يا dadkii ka shaqeeyay arintaas awal markaan Muqdisho u doono jirnay rafaadii dhibaato badan baan ka mari jirnay meelaha qaar kood lama soo marsiin jirin oo maaragtay baasaboorka rafaadii iyo dhibaato badan baan ka mari jirnay laakiin hadda si fudud ayaan loo keenay magaalada ayna arintaas aad ayaan ugu faraxsanahay waa mahad celinayna dadkii noo keenay si dhib yar ayaa magaalada ayna loo keenay oo aan ku helnay waan ku mahadsan yihiin dadkii noo keenay duqa degmada Bulubirte Maxamed Axmed Rooble Juray oo goobjoog ka ahaa dadkii ugu horeeyay ee maanta la guddoonsiiyay baasaboorada lagu sameeyay xafiiska cusub ee dhawaan hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ay ka furtay Bulubirte ayaa sheegay in maanta ay tahay maalin taariikhi ah waxaana uu sheegay inay tahay wax lagu farxo in xafiiska hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha laga furay Bulubirte iyadoo magaalada Bulubirte ay ka mid tahay magaalooyinkii ugu horeeyay gumaysigii kadib degmo loo aqoonsado waa maalin runtii annagana xusuus gooniya noole taariikhdana runtii wax badan oo magaaladan ay taariikh ay lahayd mid kale ku dari doonta inay tahay sababtoo ah waa markii ugu horeysay taariikhda degmadan laga furo xafiis migrationka uu leeyahay oo lagu bixinayo baasaboor muwaadinka Soomaaliga oo reer Bulubirte asagoo jooga Bulubirte uu ku qaadan karo baasaboor isagoo aan safar galin oo aan Muqdisho tagin isagoo aan dhibtoonin isagoo aan qarash galin isagoo magaaladiisa joogo in baasaboor loogu keeno uu ka qaato waa arrin agteena ku weyn cid walba oo reer Bulubirte ku weyn ilaa ayaan in badan kaga mahad celinaynaa waxaan si gaar ah ugu mahad celinaynaa agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Ibrahim Hussein Yusuf Ibrahim Shalaro juhdiga iyo dadaalka uu geliyay xafiiskani inuu suurto galo halkan in laga sameeyo mar kale waa u mahad celinaynaa ninka kale inaad Shalare waqtigana wuxuu si doonaa inagana si gaar ah ahmiyad u siin doonaa inaan marar badan xusuusano hal qabsigeennagana uu ka mid noqon doonaa inaan Bulubirte maanta inooga mid noqotay inaan helnay adeegga baasaboorka waa arrin aad u wanaagsan waa arrin aan isku dhiirigelinayno waa arrin aan isku boorinayno sababtoo ah dhibaatada laga mari jiray baasaboor qofka inuu helo waxay halkan inuu ka safro qarash badan ku baxo isagoo martii Muqdisho uu tago wax badan ay ku qaadato inuu iska daba laabto dhowr iyo 10 maalmood inuu ku soo helo laakiin maanta
iyadoo aanan qiimihii aanan qaali ahayn oo kii muqdisho iyo kan isku mid yihiin iyo ilaahay noo suurtageliyay inaan helno baasaboor waliba fadhiga qofka iyadoo lagu keenayo ilaahay aan markale kaga mahad celinaynaa. agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya laanta Hirshabeelle Ibrahim Xuseen Yuusuf ayaa sheegay in qorshaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ay tahay in dhammaan deegaanada Hirshabeelle laga hirgeliyo hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha xafiiskeeda si bulshada ay u helaan adeegyada ay hay'adda qabato. xafiiskii aan muddo ku howlanayn in aan ka furno degmada Buulaburte oo ilaahay uu noo suurtageliyay waxaana mahadaas iska leh agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya oo naga aqbalay in aan ka furno xafiis hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda ay leedahay degmada Buulaburte. xafiiskii waan furnay maalin dhaweed alxamdulillaah rabbil caalamiin maantana wixii loo furay dafcadii koobaad oo baasaboorradii aan maanta ka bixinay alxamdulillaah rabbil caalamiin waa dadkii ayagoo guryahooda joogaan inaa baasaboorradoodii ay dalbadaan isla degmadoodii ay ku helaan awal ay u maraayeen safarro dheerdheer iyo dhibaatooyin badan ay ku qabeen iyo meelo fogfog ay ka doonan jireen maanta asoo gurigiisa joogo ka soo doonanaya xafiiskii hay'adda oo degmada laga furay isla xafiiskii haddana ka soo doonanaya baasaboorkii 3 bari gudahood insha Allah taala haddana qolooyinkii ugu horeeyay maanta guddoonsiinay aad aan ugu faraxsanahay in degmadii aan u keenno xafiiskii hay'adda oo maantana aan ku wareejino baasaboorradii ay ka dalbadeen sida maanta oo uu howlgalay xafiiskii hay'adda socdaalka jinsiyadda degmada Buulaburte insha Allah taala deegaanada Hirshabeelle dhanna waan gaarsiin doonaa. furitaanka xafiiska hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ay ka samaysay degmada Buulaburte iyo shaqada uu xilligan bilaabay ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli degmada Buulaburte ay tahay mid go'doon ah in ka badan muddo 3 sano ah. Maxamed Cusmaan Makaraan, Universal TV, Buulaburte.